الله الرحمن الرحيم maanta ka mid ah maalmihii wacyigelintan ka wadnay Hargeysa Stadium ee koobka horyaalada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland komishanka xakamaynta Airisku maanta waxaan ka hadli doonaa mowduuceen ku saabsan yahay oo ku aadan yahay maxay kala yihiin HIV-gu iyo AIDS dadka badanka way isku qaldaan HIV iyo AIDS waxay moodaan inay isku sidkan yihiin sida magaca marka la israacinayo kale laakiin bulshada dhab ahaan HIV waxa loo soo gaabiyo horta marka koobaad human immunodeficiency virus oo macnaheedu yahay viruska wiiqa difaaca ibn aadanka AIDS-na waxa loo soo gaabiyay acquired immunodeficiency syndrome oo macnaheedu yahay difaaca markuu hoos u dhaco diseaseska uu keeno markaas taas waxa weeyaan AIDS waxa weeyaan marka xanuunka calaamado muujiyo haye taas marka soo gudubno HIV AIDS wuxuu ku sameeyaa jirka ibn aadanka markuu soo galo qofka marka virus-ku soo galo lama odhanayo AIDS baa ku dhacay waxa la odhanayaa waxa helay HIV taa macnaheedu waxa weeyaan qofka dhiiggiisa waxa laga helay xanuunkii viruska ahaa ee keenayay HIV-ga loo yaqaanay xanuunkaas wuxuu ku sameeyay jirka ibn aadanka markuu soo galo markaba wuxuu weeraraa unugyada loo yaqaano CD4 cellska kuwaasoo unugyada difaaca jirka ee loo yaqaano white blood cellska sidoo u weerara waxa weeyaan HIV-ga wuxuu sameeyaa wuxuu ku dhagayaa unug CD4 unuga markuu ku dhago wuxuu sameeyaa isagii buu isku ekaysiinaya hadhow tale uu replicate buu sameeyaa replication cashan waxa loo yaqaano uu iskoobiyeynaya unugyadii antibodieskii wuxuu ka koobnaayo difaacsanayaashii oo dhan buu ka qaadanayaa deedna unugii xanuunka siday ee viruska ahaa ayaa u dhaqmaya inuu yahay unugii caadiga ahaa ee qofka jirkiisa difaaca taas waxay sababaysaa in HIV AIDS-kii uu ku faafo unugyada difaaca jirka cadda taas ayaa hadhow tole keenaysa in qofkii difaaciisa iyo unugyadiisa dhiiga cadda ay daciifaan hadhow tolna haddii qofku qaadan waayo dawooyinka viruskaas loo isticmaalo hadhow tole waxa dhacaysa in xanuunka AIDS gudbo calaamado muujiyo